kulan wadatashi ah ayay yeesheen odayaasha dhaqanka golaha nabadda iyo midnimada culimo awdiinka waxgaradka deegaanka iyo hogaaminta deegaanka ugu sarreysa maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bishii labaad 2014 tirsi taariikheedka dalka Itoobiya kulankaasi oo lagaga wada hadlay xaaladda dalka iyo deegaanka ayaa waxaa ka soo baxay baaq kooban oo uu soo jeediyey Suldaan Cabdiraxmaan Maxamed Carab kulan wadatashi oo ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka golaha nabadda iyo midnimada علماء الدينك وحجرتك ديجانك إيه هجامنتا ديجانك وصريسا كلن كاسو كسرسنا حالة ديجانك يكندلك جودهان أيه وحكسو بحي قلبان هوسكو حسن جودهان شعب الصوماليين وحرقوا باقينا إلي حوتيان نبتقليل باحد له كهنا قاضي ديجانك الصوماليين صدح ذي سنة وجدا بيسي isla mar arrintaana la xoojiyo midnimada qowmiga laba waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay dhinac iska dhigaan khilaafaadka gudaha una midoobaan difaaca xuduudda deegaanka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliyeed iyo xisbiga talada haya inay xoojiyaan adkaynta amniga gudaha iyo xuduudaha deegaanka guud ahaan isla mar ahaantaana ka difaacaan cid kasta oo cadow ku ah shacbiga deegaanka guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa saamileyda siyaasadeed guud ahaan iyo aqoon-yahanka deegaanku inay isbarbar taagaan go'aamada masiiriga ah ee ay qaadato xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliyeed shan guud ahaan wuxuu shacbiga Soomaaliyeed ka daragsan yahay dhibaatooyinkii mahadada ahaa ee TPLF u geysatay shacbiga deegaanka sidaa awgeed waxaan shacabka ugu baaqaynaa inayna u jilba joogsan cadowga mahadada dhibaatada ah baday lix waxaan ugu baaqaynaa cid kasta una caddaynaynaa inay masiirka ummadda iyo hogaamintiisa ay matasho oo keliya xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliyeed ee loo idmaday mas'uuliyaddaas maadaama gobolka Daawo ay ka jirto abaar adag meel kasta oo aan joogno inaan gurmad shacab oo walaalnimo u sameeyno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aad maqashaan ciidamo TPLF ah baad sabab ku sii socda wax sidoo kale maqdi doontaan ciidamo Soomaaliya ayaa ku wajhan caasimadda aad sabab laakiin marnaba ma dhici doonto inay jigjiga xabadi ka dhacdo waxa sida yiri madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar mar uu ka hadlayay kulan ay yeesheen waxgaradka deegaanka sida la socotaan 3 sano kahor isbedel baa ka dhacay dalka isbedelkaas deegaanka Soomaalidu dadka ka faa'iido baan ahayn inagu isku suuq gama dhicin dalka oo dhan meelood dad horli ay yimaadeen oo isbedel horli oo ka dhashay oo waxay dadku tabanayaan wax 3 sano la xiriira uu yahay laakiin wax 7 sano ka horeysay dadkina leeyahay baan haysta leeyahay aan ahayn way jiraan sidii deegaanka Soomaaliya oo kale sanad ka hor dagaal baa ka bilowday dalka dagaalkaas oo maanta sanad jirsaday marxalad kale fara badan soo maray bishii August waxa laga soo baxay gobolka Tigray loo oran jiray وعيدمada ka soo baxeen duruufihii jiray awgeed bishii ku xigtayna iyagii baa weerar soo qaado qabsaday qaybo kamid ah gobolka Xamaarada iyo Anfarta xogta guud ee la xiriirta dagaaladaas maadaama baraha bulshada taalo oo xogta guud waa wax saacad iyo daqiiqad qof walba meesha uu fadhiyo telefonkiisa uu kala socdo weey halkay marayso anagu waxaan aaminsanahay in Tigray soo qabsada wadan oo ahayn soo laabta waayo inay ka waantoobaan fikirkoodii hore ee ahaa dadka idinku dawladda ha u sameeyay dadku waxay soo sameystaan la xaajooda inay ka waantoobaan ma qabno shakiga noocaas ah waxa si cadeynaya xalay wixii dhacay Washington baa si cadeynaya in xalay aad sabab dadku la saxeexdaan waraaqo intay u yeedhaan yiraahdaan kaalay oo waxa urban sameeyay Ethiopia Federalist League la saxeex شكلي أنا قبلها هاي مين وانتوني ويكون سين دليل Soomaalidu dad ma
عدم وأنا من جين كرناض إنه فكرة كسكوت شوي عدها وحصوني أنا ما أنا راح نوقف شيء سمك عين ديجانهان ما دام يوجب الديجان ليهن عن ديجانهان أنا لو قرانين عد تنبوع السوات ماذا وهكذا ما مصورسته أما عيدا كنتا قومي زيد عيدا قرون ويشي يعني عيدا قومي زيد والصعودة وهذا سوى قال إن الله تعالى ما ينوقش اسم وحنا المسنا هنا هيسمحوا لنا مثلا وبتجرى عن كيرين وحقب سنكر سادراديد أروت التجرى السباق صعود اللي جاء وحاول قاتان إن صومالي السباق صعودنا عند مقلسان وتجلس ولا جليل وأنت تمهد دول من نقدان أو دبلزيد قبصدان أو حروين كقبصدان أو تانجي سوقة تاني ديار صوص ونيسان يو دولنا من نص نقطة جيجو كده قالوا مرة يدعين أنت وقتها تاس يعني موقع إنسان جاقولي لي إنه ودنا يدقالي إنه والبا سأدري ده حلقة بقول حلقة عبصوتون المشتريات هوايرات مركز فهلا أنت مني واحد لبعتها ونوها ليسان روتي مشتري أسوأ لنا على الجاقولي حق حكومة dhinaca siyaasadda in dee hay-adihii dawliga ah sidooda u shaqeeyaan arrintan lagu dhawaaqay hadda xaaladda degdega ee dalka si guud baa lagu dhawaaqay laakiin annaga deegaankanaga xaalad degdega wax nagu kalifaa ma jiraan marka inaan wixii xumaanana iskaga ilaalino arrinta xaaladda degdega maadaama awoodyo dheeraada ayna siinayso aanaan ka badbadinna oo aanaan u adeegsan xaaladda degdega balaayo aan jirinba inaan annagu ku abuurino ama dad aanaan ku ugaarsanin ama urro ku ciqaabin inaan iska ilaalino unbaa annaga noo taala hadda xaalad waa caadi balaayo ma jirto deegaanku waa sidiisii dadku inay si ahaayeen faakahaysiga ku jiraan laakiin ciddii awal hore shuruucda iyo nidaamka iyo iyadoo burburinaysa ku afgabaadsan jirtay maxkamaddu sidaa ma odhan iyo waqad baan haysta wixii ciddii ahayd haddii caddayn lagu helo in layskaga qabto iyadoo lagu gardaroonayn lagu adeegsan doonaa dhinaca kale in dee ilaa duruuftu keenayso dhaqaaqii dhaqaalaha inaanan xanibin isagana wadooyinka in la dhiso biyihii in la sameeyo mashaariicii socday inay socdaan waayo dadku dee siyaasaddu ma cunayaan noloshiina way socotaa dhaqaaqa dhaqaalaha ee dowladdu ay wadana qayb buu ka yahay deganaanshaha deegaanka laftigiisa marka miisaaniyihii iyo dhaqaaqii wixii la waxeeyo shaqooyin kale noo yaalla abaarahan hadda daawo iyo ka jira iyo meelaha kale ilaa isniinta aan ka fadhiisan doono in dadka gurmadkiisii iyo shaqadiisii wixiisi loo wado si caadi aan u shaqeyno marka inaanu masiibo ka dhigano dagaal baa socday iyo masiibaa jirtay oo aanan shaqooyinkii waajibaadkii noo yaallay aanan qaban ma aha dowladduna waa in isbeddelka hadda la siibay dhaqaaq fiican iyo xafiisyadii waxaa ka muuqda sidii hore si kala duwan dhinaca bixinta xoogga la saaro dhinaca diyaargarowga arrimahaasaan ka odhan lahaa diyaargarowga waxaa qaybka iyaduna wacyigelinta shacabka iyo wada tashiga oo ah tan saaka aan halka u fadhino inaan sii wadnana ay loo baahan yahay mar alla markaa dabaylo siyaasadeed ay bilowdaan deegaankeenna waxaa dhaqan inoo ah in laga hadlo aan tashanno aan midowno aan wada hadalno aan isu nimaadno aan qamaha isqabsanno waxaan taa ku sheegayaa kow maanta etoobiya siyaasad kama socotee dagaal baa ka socda xabad baa la isu wataa qoryaa la isla dhacaya kolkaasoo kale cadow iyo garab baa la kala yahay mucaarid iyo muxaafid lama kala mucaarid iyo muxaafid waa tii hadda doorashadii waagi dabeetoo kale waa tii haddii doorashadii tu ka fiican sii qaban lahayn inta la tartabo oo la isdhaleeceeyo madaxweynahaas ku xumeeye la yidhaahdo ka dambe qofkii guulaystay inta sanduuqa loogu rido la isqabsoo gacanta isaa la yidhaahdo yaa mucaarid iyo muxaafid la yidhahda marxaladda mucaaridka muxaafidku waa taawiya marxalad xabad la isu wato oo tigrada hadday qabsadaan ay ku dilayaan kala socdaana uu kuleeyahay xaggeed gelaysaa waan ku dilayahay see u noolaanaysaa cadow aad is haysaan iyo cid garab kuwa unbu dadku u qaybsan yahay kolkaasoo kale markaa in lagu maxaafsado mucaarid iyo muxaafid madaxweyne adaa sida hadda maadbaan ka socota meelaha laga wado ujeedada lagu leeyahay waa idiin sharxi doonaa mucaarid iyo muxaafid gacantaan isqabsan horta ma isqabsan karnaa marka hore kow su-aalaan isweydiinaya anagu ururada ii jira waxaan ku eedeynaynaa faham darro siyaasadeed oo aad u ballaaran 40 sano iyo ka badan inay keentay fursad kasta oo timaada inay si khaldan u fahmaan fursad kasta marka maadaama uu faham darro iyo taxliil darro siyaasadeed ay jirto oo dadka ragaysaya dadka haddana waxaa lagu leeyahay wada tashano saasay tahay kaadi badan waa lagu magaala la yidhi cid alaale ciddii wada tashi diyaar u ah inaan la fadhiisano diyaar baana cid walba weliba meel fagaarayaal odayaasha iyo guurtigu joogaan in lagu wada hadlo oo waxa lagu midoobayo waxa lagu wada hadlayo si cad ay ahaadaan
madaxweynaha ayaa sidoo kale yiri sharaftii iyo cisigii shacabka Soomaaliyeed waanu soo celinay madax banaanidii diimeed iyo kii siyaasadeed ee deegaanka waanu soo celinay taasina iskama imaanin ee halgan iyo xanuun badan ayaa la soo maray madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa sidan yiri diyaargarowga dhanka wadatashiga waan wadaynaa idinka maanta shirkan yaa ka bilaabi doona anaga waxaanu leenahay waxa lagu midoobi karaa saddex mabda koow ay ka tashiga Soomaalida iyo ismaamulku inuu muqaddas yahay jijiga inuu yaallo wax walba oo tala maanta in jijiga la keeno waayo nin maanta diyadda inuu ku shiro ay duruuf siyaasadeed ku kanifsaa ma jiro shay anigu ku shirayno waayo halka ma nagin karin in waxaan noo ahaa waa nala xirayaa waa nala dilayaa haddaan halkaa tago jijiga tala aan oonin iyo dad Soomaaliya halkan aan laga dayn iyo dawladda jirta iyo nidaamka jira waxaan ahayn oo Soomaali matali karaa ma jiro ninka Nairobi asala jooga weligii meelaha wareego jijiga ka soo degi karo hadaan dawladda ogolayn cid keen kartaan ma jirto kolka halkan ay taala waxa la maamulaya la soo socdaan waa jijiga anigu laba ciidan goomeedeed oo aan ku Soomaali ahayn ama ciidan qaran oo lagu yeesan yahay aan ahayn oo soo gali kara deegaanka ma jiro waayo ismaamul wax ka bilaabaa ciidanka dib la saaka halkan uu fadhiyo jalan taangiye haysta waxaan ka sheekeynaa macluumaad tarayso marka ma soo gali karaan saddex talo aan ahayn anagu Soomaali ahaan anaga u madax banaan dawladdeennada cid kale u daba fadhiisan mayno ma yeelino tirada ma soo raacin cid kale ma soo raacin anaga noo talawi inta markaan ilaahay waxa loo gudbi tii ahayd waxa islaynaya xawashi iyo axmaari waxa islaynaya Tigray idinkuna axmaar la socotaan iyana waxa la socdaan Tigray maxaa iyagu ceebanaysaa idinku tiin waxa laalanaysa ma soo gali haysta waxankii saddex sano haysti taa waxaan ka waranaynaa koow Itoobiya intii aanu aan garanayo iyo intii idinku aad garanaysaan saddex dawladood baa soo maray wiilix inaga noo soo gaadhinba harar buu fadhi sheegasho waxaan ka ahayn deegaanka iyo haddaan khaldan haydo uu soo gaaro isha talaaniga ku soo galaya ma wax isku xay xitaa waaga talaaniga xid wiilix harar 1896 harar buu ka xukumayay sheegasho dadka dulkaynani ingiriiska haystay xilliga madeed wadogteedu saddex dawladood baa soo maray Itoobiya مدواتي حيلة ثلاثة أنت اللي حقنا كيين مدوا حيلة ثلاثة بقرك مدوا مجلس حيلة مريم مدوا مل الزناوي يدود هذا اللي يسوي وحنا دلعيا تقولون إيه نظام بعد دلعيا قومي الله ما دلعيا يد حيلة ثلاثة قالت وش قوي سوحها بلا بعضيها إني لا نشتو قوارث سيسو السواق كانتو ما دام أقوانها كسرين كفى في عناين bala badin loo yaro caruurta iskuul loo galiyo iyada gaari loo yihiyo iyagana lagu maadaama uu dadku talisay iyada dadka lagu sii xukumo waa in kharash iyo ciidan iyo mushaar band iskaga bixinin ku beeraad farabadan ma uu keenay waxay waana beerahan iyo fudaaliska lagu noolaa wixii guriga laga qaado intaas ku shaqeysatay dawladda xasaas ninka iga aqoon badan oo qaarkiin inay wax ka soo gaadhay laga yaabo dawladda Soomaaliya maanta ay isku haysato say ahayd ma aha boqortooyo tuuga oo Soomaali baabiinaysa oo baabiisay oo dhulkeedii iyo wixii qaadatay u baan u aragnaa idinkuna u aragtaan inaan dad jaahil laga aqoon fiicnaado oo laga hub fiicnaado oo la haystay aan lahayn baan soo haysanaa waa kan waxay ingiriisi baa yimid ingiriisi dawlad dictator oo dadka laysa oo leeyahay u badan dadkiisa Itoobiya koray inaga xageena xagaas uga mashquulay waayo ingiriisi qiyaas san iyo ahaa iyo meesha haystay saddex sano horeysay asal lagu haysto isku dilay sabaa iyo waxani Sultan Abdulrahman iyo garanaya oo fuud korba qaadiba tobankii sano dambeysay Eritrea iyo Tigray la dagaalamay xoogiisa dhan xagga u jiray kolkay Soomaaliya soo weeraray baa inaga lagu horeysay hal uu soo galay waxa ay soo galay sagaalkii bilood ee Soomaaliya ay noo soo helisay dadkii xaggan dagaalamay iyo intii dambe ay qabsadeen intaan waxyeeladii ina gaarsiin inka ka marxaatiya waan dhaleecaynayna tuubahayn waxba aynu ma tarin inaga nidaamka Soomaaliya oo halkan joogana Soomaaliya ka tahay askari baa lagu wariyay kii wax fahmay baraarugana waxa la Soomaaliya xid la leeyahay halkana ilmuhu ku iskuulka waayo u tacarrab Soomaaliya tigi jiray dad gacan baynu ahayn waan ka nimid malas baynu yimid Soomaaliya burburtay inaga soo laabanay qoomiyada la sameyn baa la yiri taariikh taageerad kulligii ogtiin ayaa taqaanaa way ka sheekayn maayo hadii wanaagsan dadda xumeed guriga laga soo bilaabo ilaa maalinka baxayeen inta xilli salaasiin misan ka sheeganayno dawladii
tigreega ee mala zinaawi wixii soomaalida ay gaadhsiisay ee dhibaato ahaa cid gaadhsiisatay jirto waan ka wada hadli karnaa caqiidadooda diintooda odayaashooda maanta hadday yimaadaan kol kasta u soo galaan waxay salaadiinta tooganayaan oo dilayaan shaqo kale mara iyagu marka saasay ahayd kuwaan waan dhaleecaynaa marka waxaan aaminsanahay sharaftii iyo cizigii shacabka soomaaliya waan soo celinay madax bannaanidii diimeed iyo kii siyaasadeed ee deegaanka waan soo celinay hal xero oo jaajuus maanta fadhiyo oo dadka farta ku fiiqaya ma jiro iskama imanin xanuun badan iyo dagaal badan iyo dhib badan baan u soo marnay muwaafaqo ayaan u baahannahay annaga xagganaga marka lagu leeyahay maantashano iyo waxaa la qarinayaa talo xunaa jirta talada aniga lagu halin leeyahay talo xunaa jirta wey waxa laga duulaya marka midnimada lama diidayo annagu wey waxaan leenahay war talo xumada aad sheegayso ile maamul dowlad baa dhisan ee seegtay dowladdu noo sheeg anigu haddaan iyaga midahno muwaafaqa loo baahan yahayna iyagaa odhan muwaafaqa looma baahna waa muwaafaqadu waa aniga soo taageer anaa joogo meeshii anaa fadhiyo oo talinaya soo raac wey marka muwaafaqada wax fiican ugu qof muwaafaqa loo baahan yahay ee kuwa waa fashilmeeni waa xmaare aynu tashano siyaasaddu marka waxa weeye saan sheegay ciddaa talada haysa markaa joogta dee ama xul kaga qaado wadu tali haddaad diido taladeeda ama taladeeda u hoggaansan wey annaga oo roo halkan jooga oo tigaal heshiis la seexanaya marti way noo yihiin guryaha noo jiifaan dulqaad ka badan muxuu yahay noo degan yihiin oo weliba sidii caruur kale nagu ciyaar leeyahay anugu habaan ogolahay isagaa diin la soo hadla madaxweynaha ama saragno waayo maxaan ku wada hadalnaa oo aan dadka u sheegnaa meel sheegi mayno anagu laakiin saraga iyo salaantaaduna aan intaasaan ka rabnaa macnaha inta hawahaasi noo socdaan kale badbaadaan ka rabnaa halkan hawlaha kale adiga kuu socdaan baad badbaadaysa annagaa waqsiina laakiin dadka waad leedahay aad beenta u sheegayso ka gaaban lahay anagu hawlahaas iyagoo kuu socdaan nasiibka yaa badbaadaysaa oonaan ku qabsanayn oonaan ku xogin oonaan ku rijalayn oonaan warinaynin nimankaa saxiixay maxay hala qabtaan aan ku warinayn iska sug halkaa ku sug jannada soo socota laakiin masabiraadda iyo beenta iyo ka beensheegga waxa aad aaminsan tahay iyo waxa hogaaminta aad kula dhaqmayso dadkayna ka daayaan baa fiican dad walaalahana oo jecelnahay oo haddaan isqabsanno wax weyn noo soo kordhi lahaa oo wax badan cirdoona dhex yaalla dhammaan lahaan weeyaane hadday diidaan oqoyo urursadaan wadaqaan naftiida diyaar baan u nahay marka inaa horta asaa loo ogaado dadkana maadaama dadka wax lagu dhex tuurayo ugu badan odayaashu ay ka yihiin in odayaashu bal waxyaalaha aan soo bandhignay hadday tahay qeexidda xaaladda dalka aragtidaad ka qabtaan diyaargarowga aan ka hadalay aragtidaad ka qabtaan wadatashigai ugu dambeeyey aan ka hadlay iyo afkaaraha dadka lagu dhex tuurayo waxaad ka qabtaan si xora inaad u soo jeedisaan